waan idin salaamay dhammaan dhagaystayaasha i dhagaysanaya meel walbood joogtaan. waa Hoob Abuukar oo idin leh soo dhawaada. maanta waxaan jeclahay inaan idinla qaybsado cashar ku jira kitaabka quduuska ah. waxaan ka soo qaadanayaa buugga Colossae. waa ducadii uu Paul u duceeyey kaniisadda Colossae. waxaan aqrinayaa cutubka 1 aayadda 9 ilaa aayadda 14. sidan ayay leedahay: sababtaas daraaddeed tan iyo maalintii aanu taas maqalnay ma aanu joojin inaanu idiin soo ducayno. waxaanu Ilaah idiin baryaynaa inay idinka buuxsanto aqoonta doonistiisa xagga xikmadda iyo waxgarashada ruuxa oo dhan, inaad u socotaan si Rabbiga istaahisha oo aad wax kasta isaga kaga farxisaan, idinkoo miro ku soo saaraya shuqul kasta oo wanaagsan oo ku sii kordhaya aqoonta Ilaah. weliba waxaanu Ilaah baryaynaa inaad ku xoogaysataan xoog oo dhan sida uu yahay itaalka ammaantiisu, xagga adkaysashada iyo dulqaadashada farxaddu la jirto oo dhan. mahad baanu u noqaynaa Aabbaha inaga dhigay kuwa istaahila inay ka qayb qaataan dhaxalka quduusiinta nuurka ku jirta. isagu waa inaga samata bixiyey xoogga gudcurka oo wuxuu inoo beddelay boqortooyadii wiilka jacaylkiisa, kaas oo aynu ku leenahay madax furasho ah dembi dhaafka. amen. ducadan marka uu Paul u duceynayo kaniisadda ma uusan la kulmin kaniisadda Colossae, laakiin maqal ayuu ku maqlay. sidaasuu u leeyahay: sababtaas daraaddeed tan iyo maalintii aanu taas maqalnay ma aanu joojin inaanu idiin soo duceyno. Paul wuxuu ahaa mid faithful ah oo aamin ah oo u duceynayay kaniisadda maqal uu maqlay aawadeed isagoo la kulmin. marka Paul ducadiisa waxay ku salaysneed 2 qaybood. qaybta koowaad oo ah inay haystaan aqoon kaamil ah xagga Ilaah, inay Ilaah aqoontiisa ka buuxsanto iyaga. qaybta labaadna in noloshooda ay dhasho miro walba oo wanaagsan, inay noqoto mid wanaagga ku badata noloshooda oo laga arko dhaqankooda. taana waxay ka timaadaa marka Ilaah aqoontiisa si fiican loogu sii koro. Ilaah aqoontiisa waa lagu koraa, lama aruursado kaliya, lama maqlo kaliya. waxa uuna barayo Ilaah waa inay noo tilmaamaan jidka nolosha, sida aan u noolaan lahayn. Paul wuxuu rabay kaniisadda inay xikmad lahaadaan, isla markaana aqoonta ay barteen inay isticmaalaan. marka haddaan u soo noqono dhinacii aayadihii aan aqrinay, ducooyinka uu duceeyey waxay ina tusayaan ama ina barayaan annaga xataa sidaa u ducaysan lahayn iyo sidaa ugu ducayn lahayn dadka kale. marka wuxuu taabtay qaybo badan aan ka soo dhex bixiyey ducada. wuxuu taabtay midda ugu horeysa inay fahmaan waxa Rabbiga rabo in ay sameeyaan kuwiisa iyo waxgarasho. haddaan aqrino aayadda 9 meesha ugu dambeysa waxay leedahay waxaanu Ilaah idiin baryaynaa inay idinka buuxsanto aqoonta doonistiisa. marka wuxuu u baryayaa inay fahmaan waxa uu Rabbiga rabo, aqoonta doonistiisa ama ogaashaha waxa uu Rabbiga rabo. pointiga labaad wuxuu ku soo qaadanayaa inay helaan xikmad iyo waxgarasho ruuxa ah, dhinaca ruuxa ah. wuxuu ku leeyahay xagga xikmadda iyo waxgarashada ruuxa oo dhan. marka waxaan arkaynaa inuu ugu duceynayo xikmad ka timaada xagga ruuxda. waxaa jirta xikmad bani aadanka iyaga ka timaada, nafta ka timaada, waxyaalaha aan aragno, waxyaalaha markaas noo muuqda. laakiin xikmadda wanaagsan oo ugu duceynayo waxay tahay midda ka timaada Ilaah, inay haystaan oo ka buuxsamaan. haddii aan fiirino qaybta 3, inay Rabbiga ixtiraamaan oo Rabbiga wuxuu jecel yahay ay sameeyaan. aayaddu waxay leedahay 10 ka bilaabanaysaa inaad u socotaan si Rabbiga istaahisha
oo aad wax kasta isaga kaga farxisaan. marka waxayna tusaysaa ducadan ama ay ku saabsan tahay inaan u soconno si rabbiga istaahisha. waxaa dhici karta mararka qaarkood inaan magaca rabbiga xumayno oo aanan u socon si asaga istaahisha ama magaciisa istaahisha. soo wuxuu ugu duceynayaa inay ku socdaan si rabbiga istaahisha oo asaga ka farxisa. mararka qaarkood waxaa dhacaya si inaan u dhaqanno ama dhaqankeena aanan laakiin ilaahay ka farxinin. marka ducada waxay anfacaysaa mar walba inaan dhahno rabbiyow na tus si adiga kaa farxisa inaan u soconno ama aan u dhaqmo. bointiga afraad wuxuu ina tusayaa inay dhalaan miro kasta oo wanaag ah. haddaan fiirino oo soo noqono aayadda waxay leedahay idinkoo miro ku soo saaraya shuqul kasta oo wanaagsan. marka wuxuu ugu duceynayaa in waxyaalaha ay sameynayaan ama sida dhaqankooda uu yahay uu u sii bato wanaag. saasuu ugu duceynayaa, wuxuu ku leeyahay idinkoo miro ku soo saaraya shuqul kasta oo wanaagsan, oo dhinac walba oo wanaaga ka mid ah ay ku socdaan oo miro ay dhalaan. waa miraha ruuxdana mar kale aan baran doonaa. qodobka 5 wuxuu leeyahay inay rabbiga bartaan mar walbana ay ku koraan barashadiisa, yacni si ka badan sidii markii hore u yaqaaneen. haddaa aayadda fiirino waxay leedahay aan sii wadno oo ku sii kordhaya aqoonta ilaah. marka uu yiraaho idinkoo miro ku soo saaraya shuqul kasta oo wanaagsan oo ku sii kordhaya aqoonta ilaah. marka midda uu barayona waxa waaye inay ku kordhaan oo uu u duceynayaan leeyahay aqoonta ilaah. mar walba waxaa fiican inaan ilaahay weydiisano inaan ku korno aqoontiisa. aqoonta ilaah ma aha in wax maalin aad ku baran karto. aqoonta ilaah waa wax soconaya ilaa internetiga, ilaa xataa marka aan tagno oo ilaah la kulanno aqoontiisa mar walba way soconaysaa, ma dhammaato. marka qofka ilaah jecel waxaa fiican inuu mar walba uu ku dadaalo barashada ilaahiisa yuu yahay, siduu u fikiraa, siduu u dhaqmaa, muxuu jecel yahay, waxyaalaha u xun maxay tahay, waxyaalaha u fiican maxay tahay. because aqoonta ilaah waxa ay inoo wadaa waa nolol. rabbigu wuxuu yiri aniga noloshyaan ahay. barashadiisana waxay ina siinaysaa nolol. noloshaasna waa mid weligeed ah oon ku noolaan doono. marka haddaa uga gudbo qaybtaas, haddaan fiirino qodobka 6, haddaan u guda fiirino inay ku xoogeystaan oo ugu duceynayaa inay ku xoogeystaan xooggiisa weyn. haddaa aqrino aayadda 11 waxay leedahay weliba waxaanu ilaah baryaynaa inaad ku xoogaysataan xoog oo dhan sida uu yahay itaalka ammaantiisa. wuxuu u baryayaa inay ku xoogeystaan xoogga ilaah oo weyn. bointiga 7 wuxuu soo qaadanayaa inay haystaan adkaysasho iyo dulqaadasho. marka aayadda daan isku xiro waxay leedahay weliba waxaan ilaah ka baryayaa inaad ku xoogaysataan xoog oo dhan sida uu yahay itaalka ammaantiisa xagga adkaysashada iyo dulqaadashada. xooggaas oo marka aan ku xoogaysano rabbiga wax inoo sahlaysaa oo inagu dhiirigelinaysaa ama inagu adkaynaysaa xagga adkaysashada iyo dulqaadashada oo farxad la jirto. marka xagga dulqaadashada waxay soo xasuusinaysaa aayad Yacquub ku jirto oo dhahaysa oo dulqaadashadu ha dhammayso shuquladeeda si aad kaamil u ahaataan oo aad u dhannaataan oo aydan waxba ugu baahnaan. waa muhiim dulqaadashada. marka Paul wuxuu ugu duceynayaa kaniisadda inay ku xoogeystaan itaalka xooggiisa weyn, inay haystaan adkaysasho iyo dulqaadasho. qodobka 8 wuxuu leeyahay inay ka buuxsanto farxad. haddaan sii aqrino aayadihii waxay leedahay xagga adkaysashada iyo dulqaadashada farxaddu la jirto oo dhan. marka wuxuu ugu duceynayaa inay ka buuxsanto farxad. marka xataa aan dulqaadanayno ama adkaysanayno waa inay la socotaa farxad oo naga buuxsantaa farxadda ilaah.
qodobka 9aad wuxuu ugu duceynayaa inay mahadnaqaan mar walba. marka wuxuu leeyahay aayaddu waxay leedahay, waxay ka bilaabanaysaa 12. mahad baanu u noqaynaa aabbaha inaga dhigay kuwa istaahila. aayadda waxay ku bilaabanaysaa mahad baanu u noqaynaa. wuxuu ugu duceynayaa oo laga baranayaa qodobadan dukashada inay mahadnaqaan mar walba. marka waxaan ka baranaynaa ducadan sidaan anaga u duceysan lahayn iyo sidaan kuwa kale ugu duceyn lahayn. sidaan hore ugu soo sheegnayba, waxyaalaha aan ku duceysanayno inay noqoto inaan ogaano waxa uu rabbiga rabo, waxa wanaagsan uu rabbiga inala rabo, inaan helno xikmad iyo waxgarasho oo dhinaca ruuxa ka timaada, unan ahayn nafsadeena iyo sidaan wax u aragno oo kaliya. inaan helno dabeecad wanaagsan ama miro wanaagsan aan dhalno oo naga muuqdaan mirahaas. inaan rabbiga u barano si ka badan sidii marka hore aan u naqaanay, oo mar walba aan ku korno rabbiga. inaan ku xoogaysano xooga ilaah, oo mar walba aan weydiisano inuu na siiyo xoogiisa, si aan u helno dulqaadasho. inaan ka barino rabbiga inuu na siiyo dulqaadasho iyo adkaysasho marka aan ay dhibaatada imaato ama cariiri uu imaado, iyo inaan ka buuxsano farxadda ilaah, oo mar walba farxadda ilaah ay naga buuxdo, oon weydiisano rabbiga inuu farxaddiisa na siiyo. rabbiga ayaa farxadeena ah. iyo midda ugu dambeysa oo ah mahadnaqid. wax walbo inaan ku mahadnaqno rabbiga, oo aan ugu mahadnaqno wanaagiisa iyo jaceylkiisa. marka waxaan kusoo gabagabeynayaa in rabbiga uu indhaheena ruuxda furo, oo aan aragno doonistiisa wanaagsan, inaan mar walbo duceysano oo ducadeena noo aqbalo, inaan ku korno ereygiisa. rabbiyow adaa mahad leh, adaa awood leh, waan kugu faraxnaa mar walba. waxaa tahay mid wanaagsan oo nala doono wanaaga. erayadan aan qaybsanaynana rabbiyow naga dhig mid aan fahanno micnaha iyo nuxurka ku jira erayada, oo aan ku kori karno iyo sidaan u duceysan lahayn iyo sidaan kuwa kale ugu duceyn lahayn. intaasna waxaan kugu weydiisanayaa magaca sayidkeena iyo badbaadiyaheena Yeshuuca almasiix. aamen.